qof iska tawaaleysana ahay oo masaakiin ah oo ka imaada gaalkacayo afar caruurna gaalkacayo jirto oo meeshaan ku rafaadsanahay oo waxa la yiri buraa kugu taala la yiri wax iga oo buradii isbitaalka dhakhtarku xor dhiiga loo baahan yahay lagu shubo dhiigina ma haysan dad muslina ay baxya isiiyay daayir cali kulmiya ay gargaar ay haddana waxaan dhiig kala dan ugu shubay haddana waxaan rabaa in la garab qabto maanta waxaan la kulanay hooyo dhibaataysan halkan dhiig la'aan ah anaga waxaan keenay caruur in indhahala ilaahay amarkiisa hooyada ilaahay nagu soo adeeyay maanta hooyadan dhiig la'aan maanta dhiig loo waayay meesha annaga waxa dhakhtarka ka codsanay inaan dhiig dhiibno ku sadaqaysano ilaahay amarkiisa dhiigeeni wuu islahaaday hooyo insha Allah operation galay soo duceeyay annaga dhiig sadaqan ku sadaqaysanay iyo waxaan ballan qaadnay wixii daawa iyo wixii ka soo baxay inaan ka dhiibno wabillahi tawfiiq محمود يحيى ويل يرو جرا wax ka yar 2 sano ayaa kula xanuunsanaya mid kamid ah isbitaalada magaalada Muqdisho xanuun daran oo ka dhashay cudurka jadeecada kaasi oo isku furay sanka iyo afka waxaana halkaasi ku lumay gabi ahaanba tubadii sankiisa neefsasho adag ayuu la dhibtoonayaa wiilkaasi maraan kula kulmay isbitaalka masaarida ee magaalada Muqdisho waxaana dhaqaatiirtu ay sheegeen inaana xaaladiisa caafimaad wax looga qaban karin gudaha Soomaaliya aabaha dhala wiilkaasi oo aan teleefanka kula hadalnay ayaa ii sheegay inuu joogo goob raashin lagu qaybinayo si halkaasi uu uga soo qaato waxyaabihii uu ku nooleen lahaa qoyskiisa waxaana sidoo kale hooyada dhashay wiilkaasi ay iyana ku xanuunsanaysaa gurigeeda oo ku yaala isla magaalada Muqdisho daahir cali kulmiye oo gudoomiyaha Alfa Trust ayaa Soomaalida u jeediyay qeeladaan ku saabsan wax u qabashada wiilkaasi yar dhakhtarka maanta ii sheegay wiilkan waa wiil muwaadin qasab waa ku qasbanaa hadii aan nahay dad Soomaali islaam muwaadiniin aan nahay waa ku qasbanaa inaan gacan ka geysano wadanka ka bixin sida uu dhaqsaha badan wax ugu qaban karno wax ay naga dhibaysan malaha xanuunka hay ana dareemay ana aabe qof walba waxaan ka rabnaa oo islaam ay caawinto waxaan ka rabnaa islaam inay caawinto please aaba ahay waa dareemaya xanuunka walaalahey muslimiinta waxaan ka rabnaa inay caawintaan mar rab inaan ku dheeraado 8 toddobaad ka hor xaaladda wiilkan yar waxay ahayd sida tan taageerada Soomaalida ayaa wax weyn ka bedeli karta xaaladda wiilkan hadduu la idmo waxaana haddii la iskaashado dib loo soo celin karaa caafimaadkii iyo quruxda wiilkaasi hooyada dhashay wiilkaasi yar ee xanuunsanaya oo ilmeynaysa ayaa Soomaalida ka codsatay in la caawiyo marka koowaad waxaan u mahad celinayaa daahir oo wiilkan ku soo booqday isbitaalka oo ku jiray 24 bari markayna dhayeen carabta wiilkan wax kama qaban karnay guriga geesta cunugana cunug guri lagu hayn karna oo ahayn intaasaan wiilkan yaa qasay jirwaa wiilka sanadii wuxuu jiraa 4 bilood jira sawiradiisa aragteen oo umaleena sida oo wiilka oo ahay